ciyaarta maanta waxaan sharaxaynaa filim lagu magacaabo Redeemer oo soo baxay 2014 daawasho wacan waa kan filimku waxa uu ku bilaabanayaa Baardo oo ah nin aaminsan khuraafaadka iyo waxa uu soo baxayaa dhankaas iyo kiniisadda waxa uu meesha ku arkayaa nin ku dhuumanaya meesha ninka waxa ka muuqata cabsi badan Baardo waa nin iska shaki badan ninkii ayaa u dab kacaya waxaanu u tagayaa halkaas iyo badda ninkii waxa qabtay 4 nin waxaanay ku iraahdeen sheeg lacagta way qabteen biyihii ayay madaxa u geliyeen waxay ku oranayaan sheeg boorsada lacagtu ku jirtay waxaanu ku oranayaa man arag boorsada way baqtiinayaan waxaanu ku oranayaa man arkin way aaminayaan dhamaantood halkii ayay kaga tagayaan waxa uu imanaya Baardo ninkan waxa lagu magacaabo Augustine ka codsanaya Baardo inuu geeyo gabadh Antonio la iraahdo gurigeeda Baardo halkii ayaa u geenaya waxa albaabka ka furtay Antonio waxa ay daweynaysaa Augustine wiilkeedana waxa uu sheegaysaa inuu guriga habarteed qabto maadaama ninkan dhaawac culus soo gaaray wiilkeedu waa xanuunsanaya waxaanay u raadinaysaa lacag uu qaliin ku galo waxay ka baqaysaa qof Augustine raadinaya inuu guriga imaado wiilkeedana dhibaato u gaarsiiyo Augustine waxa uu Baardo u sheegayaa inuu rabo inuu u noolaado sida dadka caadiga laakiin waxa uu ka cabsanayaa inay dilaan dadkani Baardo cabaar yar ayuu yar fikiraya waxaanu ku soo noqonayaa gurigiisa waxa uu soo qaatay xabad waxaanu gelinayaa baaskoolada waxa uu aaminsan yahay haddii uu baaskoolada xabadan geliyo haddii ay ku dhici weydo inuu dembi walba samayn karo wax walbana iska samayn doono haddii ay ku dhacdana inaan wax dembiya loo ogolayn waxa uu tijaabinayaa qorshahan uu ku dhaqaaqay baaskooladii ayuu u geliyay xabadii kuma ay dhicin maalintii xigtay waxa uu tagay badda waxaanu halkaa ku arkay 4 nin ee dilay ninkii Augustine waxa uu arkayaa 4 nin aad ayaa u naxnaxaya Baardo 4toodii waxa uu qaraacayaa mid dhamaantoodna waa wada dilayaa waxa uu soo qaatay mididii ayaa uu dhamaantood la dhacay mid ayaa soo gaadaya dhabarka ayuu sidii midi ka jar laakiin mootada ayuu madaxa ugu dhuftay waxa cararay kii afraad Baardana waxa uu soo qaaday alaabtii waxaanu geeyay kiniisadda waxa uu soo baxay dhankaas iyo gurigii Antonio waxa uu arkayaa ciidamo badan oo hubaysan cidna lama hadlin waxa uu yimi gurigii Antonio albaabkana waxa ka furtay Antonio Augustine waxa uu ka codsaday inuu ka celiyo raggan dilaya waxaanu u sheegay inay shandadan lahaa tuugada madaxdooda una iska tuuray boorsadani tuugada waxay u tahay muhiim waxa ku jirtay lacag fara badan Baardo waxa uu Augustine u sheegay in uu tago halku shandada ku tuuray oo uu soo qaado waanu ku raacay waxaanu tagay halku shandada ku tuuray Baardo waxa uu yimi tuugadii waxaanay ku qabteen baaskoolado waxaanu u sheegay lacagtu halkay taalo waxaana la hadlay gudoomiyihii tuugada Bidira waxaanu ku yiri kuma aaminayno ee waa inaan soo eegnaa marka hore waxaanu ku yiri waa inaad magaalada iskaga tagtaan marka lacagta heshiin baaskooladii ay gurigood ku wada qabteen waxaana tagay qaar iyaga ka mid ah waxaanay soo eegayaan lacagta Bidriya asxaabtiisu waxay imaadeen kiniisadda meel walbana way ka baadheen lacagtii waxa uu la soo baxay telefoonkiisa waxaanu wacaya asxaabtiisii waxaanu ku yiri Baardo dila laakiin Baardo isagaaba dhamaantood dilay waxaanu u dilayaa si khibradaysan laba ka mid ahna waxa uu ku dhuftay baaskooladii dhamaantood halkii ayaa uu ku dilay wax yar ka bacdi waxa goobtii yimi Bidro waxaanu qaadan la'yay inuu hal nin dilay ciidankiisii waxa uu tagayaa Steve oo ah madaxdii ka sareysay oo iska lahaa shadada waxa uu sheegayaa wixii meesha ka dhacay Baardana waxa uu soo aadayaa goobtii uu uga tagay Antonio Augustine waxa uu arkayaa iyagoo lacagta gacanta ku haysta waxaanu ku oranayaa maxaad beenta igu sheegtay Augustine lacagtan Antonio waxa uu keenay si ay cunugeeda ugu daaweyso maadaama uu xanuunsanayo waxa uu lacagta ka qaadayaa Antonio waxay ka codsanaysaa inuu lacagta siiyo waxa uu go'aansaday inuu lacagta u celiyo Bidro waanu soo baxay waxaanu soo kaxaystay gaadhigiisa waxa uu ka fikirayaa wuxuu sameyn lahaa waxa uu soo xasuusanaya xaaskiisa iyo cunugiisa waxa uu gaadhiga ku baarkimiyay badda si uu halkaa ugu fikiro waxa uu ku soo noqday Antonio waxaanu siiyay lacagtii waxa uu baaskoolada iska saaray madaxa waxaanu tijaabinayaa nasiibkiisa waxaanu sameynayaa sidii hore baaskooladii kuma dhicin waxa uu soo baxay buurta waxaanu halkan ka eegayaa gaangistarada iyo xaaladooda iyo dhaqdhaqaaqooda maalintii xigtay Baardo waxa uu soo kaxaystay gaadhi waxaanu daba socdaa qaayimiinta waxaanu tagay meesha lagu sameeyo tubaakada waxa uu daba socdaa gaadhigan waxaanu
ogaanaya waxa uu sameynayo. Gaadhigii waa uu istaagay waxaana lagu soo furay xabado maadaama ay dareemeen in la daba socdo. Baardhan halkii ayaa uu ka cararay. Waxa islaayeen mid ka mid ah ciidamadii. Waxa ka socda halkan dagaal waaliya. Waxa xanaaqay Baardhar waxaanu madaxa ka laagay ninkii. Waxa uu soo laabtay Antonio. Waxay fadhiyaan badda xeeligeeda. Waxay garabka ka saaraysaa gacanta. Waxaanu soo xasuusanayaa xaaskiisii markay waqtiga wada qaadan jireen. Waxa xaaskiisa ku dhacay iyadoo uur leh inay soo weeraraan gaangistaradu halkiina ay ku dilaan intay isagana daldalaan. Gaangistarkuna waxa uu sameynayaa xaaskiisa ayuu jirdilayaa maadaama aanu isaguna waxba u qaban karin. xaaskiisuna aad u qaylinaysaa. waxaana baaskoolad laga saarayaa dhabarka. waxa uu baaskoolada ku qabanayaa xaaskiisa maadaama aanu waxba u qaban karin wuxuuna rabaa inuu dilo. marka laga soo laabto sheekada waxa uu kaxaysanayaa gaadhi halkaasuu gaangistarada ugu tegayo. halkan waxaa wada jooga Antonio iyo Augustinna waxa uu rabaa inuu magaalada iskaga tago. waa uu soo dabaashay waxaanu soo koray doontiisa. isagoo doontiisa istaaraya waxa uu arkay ciidamadii gaangistarada. waxaana goobta jooga mid ka mid ah ciidamada gaangistarada oo ahaa madaxdooda. waxaanu joogay goobta. dhanka kale waxaynu aragnaa Baardhar oo u tegay gaangistaradii isagoo baaskoolad gacanta ku wata. waxay istagaaleen raggii gaangistarada ahaa. waxaanu soo furay albaabkii. waxaanu midmid u dilay gaangistaradii. waxay islaynayaan Pedro oo madax u ahaa gaangistarada. waxaanu isku laynayaan feedhfeedh. waxaanu Baardhar ku fiican yahay ciyaarta feedhka. waxaanu dilayaa ninkii. waxa uu soo kacayaa dhankaas iyo madaxda gaangistarada. waxa uu arkayaa gaangistarkii waxaanu ku qabanayaa xabad. isagoo xabadii ku haya ninku waxa uu dareemayaa in meesha lasoo galay. waxaa lagu dhufanayaa madaxa Baardhar. waxaanu soo xasuusanayaa Al-Akran iyo wiilkiisa. Al-Akranna waa gaangistar weyn. waxaanu ka ganacsan jiray daroogooyinka iyo waxyaalaha qaldan. Baardharna waxa uu rabaa inuu dilo laakiin waa uu ku qaldanaa inuu arrintan sameeyo. waxa uu dagaal xoogna dhex marayaa labadooda. Al-Akranna maaha mid si fudud lagu dili karo. waxa uu dilay Al-Akran wiilkiisii waxaanu ku dhuftay xabad. aad ayaa uga xumaanaya Al-Akran. waxa uu ka dul ooyayaa wiilkiisa uu aad u jeclaa markii la dilay. markaynu kasoo noqono xasuusta waxaynu arkaynaa isagoo hor fadhiya kiniisadda. Al-Akranna haysto Antonio iyo Augustin. waxa uu Augustin u dhiibayaa baaskoolada waxaanu ku odhanayaa madaxa iska saar oo isdil. Augustin waxa ku qaylinaysa Antonio. waxa uu xabad kaga dhufanayaa lugta. waxa uu xabada ku qabanayaa Al-Akran laakiin halkaas ayaa lagu dilayaa. waxaana dilaya ciidamadiisa. halkaas ayaa uu ku dhintay Augustin. gabadhiina waxa uu ku qabanayaa madaxa. waxaanu jijiidayaa timaha. waxaa kale uu ku qabtay xabadii Baardhar. Antonio ayaa xabadii gacanta ku qabsatay. waxaana halkaa iskugu haysa xabada. waxaanu ku yidhi isdil. Baardharna waxa uu soo xasuusanayaa markii xaaskiisa la jirdilayay. Antoniana waxa ay baaskoolada ku qabanaysaa ninkii. Baardharna intuu xanaaqa ayuu saa baaskoolada uga laagayaa. way islaynayaan labadoodu. waxaa lagu dhufanayaa feedh Baardhar. Baardharna waa iska celinayaa. dagaal xoogan oo labadooda dhex maray. ugu dambeyntii waxaa la dilayaa ninkii. halkaas ayaanu ku guulaystay Baardhar. waxaanu xabad ku dhuftay gaangistarkii weynaa. gaangistarkiina halkaas ayaa uu ku dhiig baxo ku dhintay. Baardhar iyo Antonio gacanta ayay soo qabsadeen. filimkiina halkaas ayaa uu ku dhammaaday.